soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu kaga hadlayno safarka madaxweynaha waa Cabdirashiid Oodile habeen wanaagsan. madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ku tagay magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose safar gaaban oo qaatay shalay ilaa iyo xalayto waxaana madaxweynaha uu la kulmay dadka maaragtay aqoon-yahanada iyo dhalinyarada iyo indhergaradka iyo duqooyda waxaana madaxweynaha la arkay asagoo ku dabaalanayo xeebta weyn ee Markacadey oo ay farxad ka muuqdaan garbihiisana taagan yihiin wasiiro wuxuuna socod ku maray magaalada Marka iyagoo ay garbihiisa taagan yihiin taliyaasha ciidamada waxaana uu kulan la qaatay madax kale iyo odayaasha dhaqanka. madaxweynaha oo meesha ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in halkaasi ay noqoto meel ammaankeeda la sugo isla markaasina dadku ay isku tiirnaadaan. dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu ku saabsan yahay weli la sheegin la yeeshay madax sare oo ajaanib ah halka shirkaas oo ka dhacay xeebta weyn ee badweynta Hindiya. shirka dabadeed ayaa madaxweynaha waxa uu diyaarad qaas ah u soo qaatay ama ka soo qaaday magaalada Marka isla inta aan shirka dhicin kadibna ay keentay magaalada Muqdisho. war goordhowna soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in caawa ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxyo bambooyinka gacanta laga tuuro ah iyadoo la malaynayo qaraxyadaasi in ay ka dambeeyaan kooxaha had iyo goor sheegta qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho waxaana goobaha laga maqlay ay kamid tahay wadada Maka al-Mukarrama degmada Madiina iyo sidoo kale war ayaa waxa ay sheegayaan in dhanka xalane wax laga maqlay iyadana sidoo kale lama sheegi karo inay tahay madaafiic lagu tuuray iyo in ay tahay bam gacmeed lagu tuuray balse wixii ka soo kordhaba waxaad naga maqli doontaan goordhow. sidoo kale halkaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena gaarka ahay oo kaga hadlaynay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya.